Santarka magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ayaa waxaa ka dhacay dhacwadareed loo geystay koox dhalinyaro ah kuwa oo ku sugnaa bartamaha magaalada Oslo gaar ahaan McDonald's ku yaalo santarka weyn ee magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Dhacan baahsan ayaa waxaa geysatay koox lagu qiyaasay 7 ilaa 10 dhalinyaro ah kuwa oo wajiga soo xirtay waxa ayna gudaha santarka ka geysteen dhac oo ay kula kaceen wiilal dhalinyaro ah oo tiradoodu lagu sheegay 4 qofood. Kooxdan wajiga soo duubatay ayaa lagu soo waramayaa in ay dhaceen wiilashan kana qaateen jaakado, lacago iyo sidoo kale agab kale. Waxayna boolisku sheegeen in lagu soo wargeliyay dhacan ka dhacaya bartamaha magaalada Oslo gaar ahaan santarkeeda agagaarka McDonald's ku yaala santarka magaalada Oslo. Booliska oo sheegay in ay si degdeg ah goobtan ku soo gaareen ayaa waxa ay ku soo waramayaan in ay kula kulmeen 4 dhibano ah oo dhac iyo jirdilba loo geystay. Waxa ayna boolisku sheegeen in mid ka mid ah la ceejiyay markii dhaca loo geysanayay. Booliska ayaa sheegay in goobta lagu dhacay lacago, sidoo kale jaakado iyo agab kale kuwa oo ay haysteen ama wateen wiilashan 4 ah ee dhaca loo geystay. Waxayna boolisku ku waramayaan in ay baadigoob xoogan ku hayaan dhalinyaradan dhaca geysatay oo uu wajiga u xirnaa. Waxayna sheegeen tiradooda ama ay ku qiyaaseen in ay ahaayeen 7 ilaa 10 qofood. Taliyaha howlgallada booliska Roy Langengen ayaa ku waramayo in ay hadda daba socdaan oo ay baaritaan ku hayaan dhalinyarada dhaca geysatay oo uu wajiga u xirnaa. Waxa uuna intaa ku daray 4 dhalinyarada ah ee dhaca loo geystay 3 ka mid ah waalidiintooda lagu wargeliyay waxa dhacay iyo sida ay u dhaceen. Waxayna sheegeen booliska in ay arrintani kiiska fureen. Dhacdooyinka noocan ah, dhaca iyo sidoo kale jirdilada iyo arrimaha dambiyada dhalinyarada geysanayaan ayaa ku sii badanaya magaalooyin kala duwan oo dalka Norway ah toddobaadyadii iyo bilihii u dambeeyay. Halka warka kuwada ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.